السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان inta ku xiran janaalkayga iyo beedkayga. Jilib xanuunka waa xaalad caan ah, dadkuna ka cawdaan in badan uuna saameeyaa da' kasta. Jilib xanuunka wuxuu imaan karaa marka uu dhaawac gaaro jilibka. Dhaawacyada gaari karana waxaa ka mid ah in arjawda ama seedka jilibka dillaacdo ama dhaawac ku yimaada. Jilib xanuunka sidoo kale waxaa sababa xaalado kale oo caafimaad darro ah sida caabuqa kala duwan ee ku dhaca kala-goosyada lafaha. Calaamadaha jilib xanuunka waxaa ka mid ah marka hore qaybta jilib xanuunka sameynaysa iyo darnaanshaha xanuunka waxay ku xiran tahay waxyaabaha sababa jilib xanuunka. Calaamadaha ugu horeeya: 1. barar iyo inuu adeeg noqdo jilibka. 2. in jilibka uu yeesho kuleel iyo guduud. 3. daciifnimada dhanka socodka. 4. inuu qofka awood u yeelan waayo inuu fidiyo jilibka. waxaa wanaagsan inaad dhakhtar aado haddii aad isku aragto jilib xanuun leh calaamadaha soo socda. 1. haddii aad isku aragto qayb ka mid ah jilibka oo bararto. 2. inaad awoodi weyso inaad fidisid jilibka. 3. haddii aad aragtid qaab dhismeedka jilibka oo wax ka bedelan. 4. haddii aad aragto qandho iyo jilibka oo guduuto. 5. xanuun daran oo la socda dhaawac ku gaaray. haddaba waxyaabaha sababa jilib xanuunka waxaa ka mid ah: 1. dhaawacyo soo gaaro jilibka. waxay saameyn ku yeelan kartaa arjawda iyo seedka jilibka. erihiisa ku yaala kala dhaawac soo gaara jilibka wuxuu dhaawici karaa kiishka dareeraha ee ku jira jilibka, kaas oo qabta shaqo muhiim ah. waxaana imaan karaa xanuun. sidoo kale xanuunka jilbaha waxaa imaan karaa marka uu dhaawac soo gaara arjawda qaybta hore ee jilibka. sidoo kale xanuunka jilbaha wuxuu imaadaa marka uu jab ku yimaado lafdheerta jilibka. sidoo kale xanuunka jilibka wuxuu imaadaa markay kala baxaan lafaha. 2. waxyaabaha sababa jilib xanuunka waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee caabuqa ee ku dhaca kala-goosyada lafaha. dadka khatarta ugu jira inuu ku dhaco jilib xanuunka waxaa ka mid ah: 1. dadka sida xad-dhaafka ah u cayilan. 2. dadka muruqyada adag sida dadka naafaha ah. 3. dadka xirfadlayaasha ah sida ciyaaraha kubadda cagta. 4. dadka qaba dhaawaca hore ee jilbaha. haddaba sidee looga hortagaa jilib xanuunka? 1. la soco miisaanka jirka. 2. waxaa wanaagsan inaad tababar qaadatid inta aadan ciyaarin ciyaaraha kubadda iyo ciyaaraha kale. 3. waxaa wanaagsan inaad jimicsi samaysid. haddaba sidee ku yareyn kartaa jilib xanuunka adiga oo jooga gurigaaga, ama qaabkee oo la tacaali kartaa jilib xanuunka adiga oo wax dhakhtar ah u tegin? 1. marka hore waxaa wanaagsan in aad nasato. 2. isticmaal baraf waxaana saarsaartaa jilibka ku xanuunayo si aad ugu yareyso xanuunka iyo caabuqa. 3. waxaad isticmaashaa biyo diiran si aad ugu yareyso xanuunka. 4. waxaa wanaagsan inaad cadaadis saartid jilibka adigoo ku xirayo mataajada. 5. sare u qaad jilibka adigoo fadhiya si bararka kaaga yaraada. taas waxay kuu sahlaysaa in uu kaa yaraado bararka. waxaan filayaa walaalaha qaaliga inaad ka faa'iidaysateen toobikeena maanta ee ku saabsanaa jilibka.